badan baa shanta wasiir dhinacyada la iga dhigay laakiin qaybta shanaad waligay ma gelayo qaybta shanaad anoo lafdhabarkii Soomaaliyeed aniga Muqdisho wiil baa iiga dhintay Cabdi Baari oo mana socdo wiil baa iiga dhintay Muqdisho taas inaad xisaabta ku darto way inaad xawaadle ma wuxuu ka muuqdaa gobolka Banaadir anigu waa ka muuqdaay bal sababtan xawaadle inta iiga sii hoos marisay miishii kartmaan nahay ninkan aan baawurka ku wada nimid shabaqlaha maxay war culus ilma cali ismaanaan haatir aniguna ilma cali hiraabana ilma cali hiraabana aniguba saaxiib hal habeen lama ii sheegi aniga hadday dhalasho noqoto anigana ilma cali hiraabana hadeer xisaabta taas inaad ku dartid shanta xidigood waa inay qaybta koowaad bay xaq u leeyihiin hadday waayeen laba inay helaan waayo ay dhibinina waa idin bariyaa areega dirta wax meel si ayaga waa qaydinooyaan dirta wax meel si qubayska iyo wax ma siiseen ya waa kuwan qaydinaaye ma saxabadna xabad lama siin miya ma yaadi gudoomiyaalkii la magacaabay isku isma wali waxba la dhisaya Soomaa sida dawladdu u dhisan Soomaaliya la dhisi maayo kollayba wax un baa la heli doona Soomaa laakiin aniga marnaba haddaad iga dhigtaan intee kormeerka guud intee ma soconayso oo ma ciidamo ama iga dhigtaan ama meel iyo maamul iyo qasnadeed jeeri iyo waxaas no way waa inaan xamar saan uga muuqdo gobolka Banaadir ismihiisa midda kale ninka saruur asagu ma ku qancay ma sankaad u galisay ninka saruur waa dilay xilliga laga bilaabo dhintay ka war waxaan la yahay rasuul waa dhintayba ninka maskiinka naftiisa meel cidla ayaan la dhigin runta idin sheeg xawaadana waa dhintay gudoomiye ku xigeen Soomaa xawaadna asagana karfantaada madaxa ku xir ma xawaadna ka muuqda xamar حوادنا ما كان مقرأ no way reer xamar xoo kugu soo oo kugu soo biirinaya bajiyaysa iyo macasharadiisa shiilanaya saaway waa lagu daydaa maalin dirireed biir habar gidirta waa lagu daydaa maalin dirireed dadka wax ku gelinayo naftale waa inaad ka dhigtaan kaalinta koowaad ama kaalinta labaad runta idin sheegaysaan dawladda uga muuqda waad aragtaan ninka dawladda ka muuqda waa inuu gobolka Banaadirna ka muuqda runta idin sheegaya dhagiina caawa hala furo hadday noqoto xamar madagtidna eebo 20 sano degan luuqad milaad igu xiraysaa luuqad 20 sano ku bart 20 year saaxib masaajida igu yaal Cabdallah Xawareere la yiraahdo 400 sano 500 sano ka hor xawaadna ma ugu yaala daruntaan la isku sheegin ba runta in la isku sheego waa xoog badan waxa xoog keena wallahi ayaa xawaadna ma ugu yaala no way mursada ma ugu yaala no way mursada dayniilo dhiiba waxa kugu soo daray iska badaaw oo kugu soo biiriye dayniilo dhiiba xafiiska waxa u fadhiyo nin gar weyn oo garkiisa aan la aqooniyo midabkiisa oo juuli garku ugu jiro ay ma sakatiri in adeerkay dagaa la furo ninka wax kugu taraya ayaa saaxiib wax la siistaa ya bala fawr ciidankii mursadada waxay ka fayl garaysan yihiin kismaayo muxuu kugu taraya marka ninkan mursaday xawaadlaaba iigu daran xawaadlow kaalintaas waa ka dhimateen xabad iyo 9 bilood oo buuraha wacdal meelan madaxeeda ahay majeeda noqon maayo neba meelan madaxeeda ahay majeeda inaan noqdo السلام عليكم ورحمة الله وروحاس قفك وحمان سو قرو هلا تورو بليس هنقول سو العلنينا دغانا غو وسقينينا وixii qof xun soo qoro ama magac oro waa wato magac muhiim ma ahane shaatiga ma ahan sida loogu labistay qofka ku dhex jira muhiim qofkii wax xun soo qoro hala tuuro adinkana caayinina oo dhagaha naga sii wasaqeynina bليز dadka waalina al-shabaab mar walba waxay ku fiican tahay nin iska leh oo u dhashay oo ka naxay in la siiyo magaalo kasto waa in la siiyaa ninkii iska lahay gobernatoreeda waa inuu noqdaa ninkii iska lahay thanks aqeer saburdigu salaanta kulligin sababtu waxa waaye adduunyada dhanayba ka jirtaabo duqa magaalada waa inuu noqdaa ninka magaalada u dhashay waa ninkii ku soo garguurtay abootidiis ay ku socon jirtay abootidiis kale ay joogi jirtay macnaha magaaladu yaqaana waa haddii uu ka seenin xataa waa ka naxaya baladkiisii waa
laakiin nin socoto ah haddii xamar loo dhiibo macnaheeda ma yaqaano waxay xamar dhexda uga dhacday awalkii hore saasay ahayd soo nin kasta oo xamar ka dego waa inuu noqdaa ilaa iyo 100 sano hadda dhiman ay dadku civil ka noqdaan macnaha ay ilbaxnimada waxa ay tahay iyo ay qaataan nolosha fiican ma fahamtay wacays la kuma jiro uu yiri adiga degmada ceeldheer ayaad leedahay gudoomiye ka ahay Jamal xo magaca kale iska soo qaado adigoo aad u mahadsan maxaa yeelay waana kala kasaysaa sabuurada hadalkaaga haday uga jeeday teeda kale aniga ceeldheer sarada dheer amba ka dhisan rabaa maxaa yeelay carasan waayo waa dhul aad u qurux badan ceeldheer waliba waxaan ka dhisanaa xaradheer waa degmada ugu dambayso oo afgaal dhulkeeda uu leeyahay xaradheer ilaa badda cas aan daaraha ugu dhaadheer ka dhisanaya meeshaasaan aniga asal ahaan leeyahay inkastoo awowgay xamar uu ku dhashay awowgii aniga aan kasoo farcamay xamar uu ku dhashay laakiin aabahaygii kale meeshuu ku soo koray ilaa Kismaayo xataa ana iskale marka aan u maleynay inaan ceeldheer diidayo oo xamar isku dhijinayo ya xamarna kaalihii xaradheerana ku dhashay ala kulli xaal waxa waan ka hadlaynaa siyaasad ahaan hadii la rabo Soomaaliya inay hagaagto buulo bardo waa in reer buulo bardo loo dhiibaa baladweynana kadalika xamar ninkii xamar u dhashay waa in loo dhiibaa Kismaayo waa in abgaala loo dhiibaa maxaa yeelay hadaan dadka cadcadka loo dhiibi karin nin abgaalo kala dambeynta keeno oo dadka dilaya ka celiyo waa in loo dhiibaa sababta idin sheegay maxaa yeelay Kismaayo waxay ahayd balad annakaan iska leenahay inkastoo baadiyihiisa aan ku dhaqano oo tuulooyinka u dhow oo dhan aan xoolaheena iyo beeraheena ay ku yaalin haddana nin kasta oo socota inuu shafka dadka u garaacay naqatay marka Kismaayo waxa alaala wixii dadka ku dhibay 30 sano ugu dambeeyay u fiirso nin kasta oo socota 30 sano ka hor ma joogin waa in banaanka laga dhigaa oo dadka cadcadka oo baajuunta ah iyo waxaas loo dhiibaa hadii la waayo waa nin abgaal ah oo murqa waaweyn in loo dhiibaa oo kala dambeynta magaalada ku soo celiya waxyaraan idinka mashquulaa khayr sharafta leh maayigana free waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم dadka sabuurada ku soo qoray lafaha kamida abgaal warnimaya